tacadiyada ka dhanka ah gabdhaha yaryarka ah ayaa kusoo badanaya guud ahaan Soomaaliya. Waxaan kula wadaagayaa muuqaal aad u naxdin badan oo ku saabsan tacadi loo geysanayo gabdha yaryar. Haddii aad tahay waalid ama walaal ay la dhasheen gabdho, muuqaalkan wuxuu ku yahay fariin aad kaga warhayn kartid caruurtaada iyo sidoo kale walaalahaaba hadday jiraan gabdho yaryar oo dugsiyada quraanka iyo sidoo kale iskuuladaba loo diro. Intaanu kula wadaagin muuqaalada aan kuu sheegay inaan kula wadaagi doono oo dhammaanteen inoo ku filan cibri qaadasho ama aan wax ka baran karno, waxaan kaa codsanaya inay YouTube kusoo biirto oo subscribe dhahdo, muuqaalkana like saarto, gabalka farato si ay kusoo gaaraanin warbixinada ku saabsan Soomaalida ee aan halkan kusoo gudbino. Haddii aan ku bilaabo muuqaalkan halkan inay ka muuqda aad daawanaysaaniin muuqaalkan aad daawateen wuxuu ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waa muuqaal naxdin leh oo ah macalin ardaydii quraanka u dhigayay oo ah gabdho yaryar ah oo 11 jir iyo 10 jir ah ku dhegdhegaya si fool xunna u haysta isagoo markaasi gabdhaha yaryarka ah wax ka raadinaya. Waxaa la sheegay in kadib markii macalinkan laga shakiyay kaamiradan qarsoon meesha lagu dhajiyay sidaasna muuqaalkan lagu helay. Haddaba ma ahan markii ugu horeysay oo dhacdooyin noocan oo kale ah ay ka dhacaaneen Soomaaliya. Waxa ka mid ah deegaanada ay ka dhaceen Somaliland, waxay ka dhaceen Puntland, waxay ka dhaceen Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dhexaba dhacdooyin noocan oo kale ah oo ah in caruurta yaryarka ah ee iskuulada iyo dugsiyada quraanka, waliba dugsiyada quraanka loo soo diro, ay dhibaatooyin kala kulmaaniin macalimiintoodii waxbarayay. Taas oo muujinaysa in dadka dugsiyadaas ama madarasadahaas mas-uuliyiinta ka ah oo furtay inaysan wax wara ka hayn waxa ka socda dugsiyada ay mas-uulka ka yihiin. Dhanka kale waxyaabaha keena in dhibaatooyinkan oo kale ay ka dhacaaniin waxa weeye in waalidiintu aysan mas-uul iska saarin caruurtooda oo aysan inta badan ilmuhu markuu yar yahay inta badan aan lagu darin qof xoogaa muqdara oo wax kala garan kara oo dhibaatada ilmaha ku dhacaysa ka warhayn kara. Ma ahan markii ugu horeysay oo dhibaatooyinkan oo kale soo noqnoqdaanin ilaa iyo haddana ma jiraanin wax lagu tusaale laga dhigan karo oo macalin dugsi quraan ama cid kale oo dhibaato noocan oo kale caruur u geysatay oo ciqaabteedii la mariyay ilaa iyo hadda weli ma jirto. Ninkan halkan sawirkiisa ka arkaysaan waa ninkii falkaas sameeyay oo macalinka ka ahaa dugsigaas. Muuqaaladan laga keenay waxaana la sheegay in ninkan hadda la hayo oo gacanta ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho uu ku jiro. Waxaana la eegi doonaa macalinkaasi baaritaanada lagu sameeyo iyo ciqaabta la mariyo, taas oo tusaale u noqonaysa in arrimahan oo kale laga feejignaado oo sidoo kale aynan macalimiinta ragga sheeganayo dugsiyada dhiga inaysan arrintan oo kale ku kicin. Asbuuc ka hor ayay ahayd markii magaalada Burco ee maamulka Somaliland ay arrintan oo kale ka dhacday. Waana arrin runtii waalidka Soomaaliyeed fariin cad u ah. Waana sidoo kale arrin quus ah oo ah in dugsiyadii oo ah meeshii diinta Islaamka laga baranayay in caruurtii ay dhibaatadaas kala kulmayaan. Runtii waa arrin mucjiso ah iyadoo muujinaysa adduunyadan gabagabada ah oo akhir zamaanka lagu jiro. Dhanka kale waxa la eegi doonaa ninkaas ciqaabta la mariyo. Waxa ayna noqon doontaa haddii ciqaab u qalanta ninkaas la mariyo in lagu cibri qaato oo macalimiinta kale oo arrimahaas way jiraanin maadaama in badan la arkay way jiraanin arrimahaas oo kale dugsiyadana waa meelaha ugu badan ay ka dhacaanin. Balse waxa la eegi doonaa sida dowladda Soomaaliya ay ninkan falkan geystay oo gabdhaha yaryariiska ah oo saqiiriinta ah, gabdha maaha waa caruure, dhibaatada u geystay sida loola dhaqmo. Dhanka kale fariinta waalidiinta ay u tahay waxa weeye inay caruurtooda ka warhayaanin. Qofkii macalin caruurtiisa gurigiisa uu qabsan karana uu ugu qabsado halka ilmaha quraanka iyo akhlaaqdaba halkaas
lagu tarbiyadeeyo. Dhanka kale qofkii aanu awoodinna caruurtiisa inuu dabcan uusan macalin guriga u qabto, iyadana waxay noqon kartaa in uu ka warhayo oo dugsiga ilmihiisa kaga warhayo, ama qof muqdara ha ugu daro ama si kale ha uga bahalkeeye. Laakiin arrintan waa arrin soo laalaabatay oo dhibaato ku ah dadka Soomaaliyeed caruurtooda dhibaato aad u weyn ku ah weeye. Waana arrin runtii fool xun oo sawir xun diinta islaamka ka gudbinaysa, balse waxaa la eegi doonaa dowladda Soomaaliya oo hadda iyada ay la taalo kubaddu, maadaama ninkaasi uu dhibaato ka geystay magaalada Muqdisho, sida laga yeelo ayaa la arki doonaa. Puntland ayaa dhowaan bilowday in ay iyadu macalimiinteeda diiwaan geliso, ayna qof walba oo dugsiga dhigta, dugsiga aan dhehe macalinka ah iyo cidda mas-uulka ka ahba ay diiwaan geliso, ay isla markaasna u samayso aan dhehe kaarar ay u samayso si macalimiintaas looga warhayo iyo cidda ay yihiin, inay tahay ciddii ku habboonayd ee dugsigaas dhigi karta. Haddii aad waalid tahay, marka fariinta ugu dambeysa aan kula wadaagayo waxa weeye inaad caruurtaada ka warhayso, dugsiga ay aadayaan, iskuulka ay aadayaan, aad la socoto, aad wareysato, aad si fiican ula falgasho. Inta badan dadka Soomaalida waxa lagu tilmaamaa inaysan mas-uuliyad badan ay iska saarin caruurta, lacagta iskuulka ama dugsiga ay bixiyaan, ilmaha cuntadiisa ay siiyaan, dharkiisa ay u xiraanin. Laakiin halkan oo ah maskaxda, oo ah meesha ugu muhiimsan, ilmaha aysan la socon. Muuqaalkan hadduu ku soo gaaro, fadlan sii share garay oo la wadaag qof caruur leh ama qof gabdho ay la dhasheen. Inagoo dhan bay gabdhe nala dhasheene, fariintan meel fog gaarsii si ay dhammaanteen inuu ku noqoto arrin waana ah. Waana mahadsantiin.